ma ogsoon tahay hogaamiyayaasha xunxuni waxa ay u jecel yihiin inay highlight gareeyaan wanaagooda because cabsibay waxay ka qabaan inay credibility-gooda iyo dadnimadoodu ay lunto meesha ay wiiga ku yihiin hadday dadka la sheer gareeyaan ogsoonow qof kastoo annaga naga midahi ma ahan qof perfectia ama ceeb ka saliila haddii aad hogaamiye tahay oo aad naftaada hogaamiso ama cid kale hogaamiso waa inaad naftaada runta u sheegi karto dhahdo wixii aanan aqoonin sida aniga baraarujin in badan oo aan aqoonin oo teamka researchka iyo duubiddu ay iga sareeyaan yaa iga caawinaya waa inaad ogsoon tahay xageen u baahanahay inaan strengthgayga iyo awoodayda geliyo xageesa u baahanahay inaan cid kale uga tiirsado si aadan mar walba dadka ugu sheegin meesha aad ku fiican tahay oo aad ka qariso meesha aad ku liidato insha Allah sideed u jeclaan lahayd inay bulshadeenu noqoto mid baraarugsan waa mas'uuliyad annaga dhanna wada saaran markii aad dhamaysato message-kan fadlan la share garee dadka kale nuguna soo biir si aan u gaarno dad badan una baraarujino bulshadeena السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله وأنا السلام يا ميل كستود مسج كنا كده جيسان ولكن فرحان وايه وعشر كنيس صدحات قصية سيدا أصو صار لهيدا النمذا هذا يكوالتي كاغا عشر كانوا حكاها الله سيدو قفكو أولها لها دبعي أما دبعي عدوان أكسن وددك أما كو كسبان لها أما وكوه قامل لها وحالي هذا قفك الشخصي دبعي عديسة يقفك الليدركا دبعي عديسو مكلا دوانا maxaa yeelay leaderku ama hogaanku xagee buu ka yimid wuxuu ka yimid shakhsi buu ka yimid oo noqday hogaan noqday marka inaad shakhsinimadaada ama leadernimadaada dabcigaaga iyo dabeecadaada aad buska ka jafto oo wasaqda ka jafto oo aad noqoto qof character fiican leh waa wax muhiim ah waxaa la yiraahdaa the reality of leading ourselves it's an often most difficult task we face in every day dhibaatada ugu badan ee nolosha aan face gareynayno ee aan taabanayso waxa waaye sidaan u hogaamin lahayn ama aan u hagi lahayn ama aan u horsocon lahayn nafteenno wanaaga inay samayso maxaa yeelay waa wax fudud waaye inaad ka hadasho dabci iyo dabeecad laakiin inaad dabci iyo dabeecad wanaagsan leedahay waa wax aad wanaagsan waaye Mahatma Gandhi wuxuu yiri ninka ama wiilka ama qofka dabeecadda wanaagsan iska leh position kasta ee shaqo ee loo dhiibo wuxuu noqonayaa mid ka soo ifbaxa waa qisadii nabi ilaahi maxamed sallallahu alayhi wasallam xadiiskiisii oo ahaa qofkiina ikhyarakum fil jahiliya wuxuu noqonayaa ikhyaar ama wuxuu noqonayaa qof dabci iyo dabeecad wanaagsan leh markuu uu diinta soo galo macnaheedu waxa weeye ama muslim ahoo ama gaal ahoo ama cidda doonto ahoo dadka ilaahay subxaanahu wa ta'ala dabcigooda iyo dabeecadooda wuu kala duway wayna kala duwan yihiin haddaba sidee buu qofku ku haanan karaa ama ku heli karaa inuu dabeecad wanaagsan yeesho ama character wanaagsan yeesho sidee buu ku helan karaa haddii uusan lahayn dabci wanaagsan ama dabeecad wanaagsan uusan lahayn ama character fiican uusan lahayn sidee buu u develop gareyn karaa oo uu u heen gareyn karaa ama u heli karaa inuu dabeecad iyo dabci wanaagsan yeesho ma ahan haddaadan lahayn inaadan heli karin waa inaad ogsoonaato weeye waa wax aad heli karto oo aad haaman karto ama aad maaragtay gacanta u taagi karto inaad hesho oo aad u baahan tahay kaliya inaad ka shaqeyso saddexdan waxyaalood waxay kuu sheegaysaa ama sida loo helo ama sida ay tahay ama why muhiimadeedu ay muhiim u tahay number 1 good character build a strong trust markaad dabci wanaagsan leedahay waxaad dhisaysaa foundation ama adkaysi dadku ay kugu aaminaan bal aan su'aashan ku weydiiyo saddexda qofood ee aad nolosha aaminsan tahay bal magacyadooda ii sheeg magacyadooda bal adigu isku sheeg saddexda qofood ee aad aamini karto oo noloshaada aad ku tarasgarayn karto sida aan rajaynayo waxa ay ka imaanayaan number 1 qoyskaaga number 2 waxay ka imaanayaan saaxiibada aad isku xilka dheertihiin waxaa laga yaabaa in yar oo kamida inay ka timaado shaqadaada ama maaragtay dadka aad la shaqayso inay ka timaado in yar aad isku xeerdheertiin waxaan rabaa inaan kuu sheego haddii su'aashaas la weydiin lahaa dad ma laga yaabaa magacaagu inuu imaan lahaa in lagugu daro in aad ka mid noqoto suurtagal ma ahaan lahayd inta badan dadka kambaniyada kuwid gareeya ama kambaniyada ka taga kambaniyada kama tagaan waxay kuwid gareeyaan oo ka cararaan dabciga iyo dabeecadda xun ee dadka la shaqeeya ay leeyihiin
waxayna dadku ku dhibmutaan waxa la qabta ma aha dadka ay wax la qabanayaan ama ay dadka ay la joogayaan waa waxa ay ku dhibmutaan buug waxaa jira la yidhaahdo Speed of Trust oo uu sameeyey Steve Covey uu sameeyey oo uu ka hadlayo wuxuu leeyahay trustiga ama aaminidu waxay u dhaxaysaa laba qofood qofka wax aaminaya iyo qofka la aaminayo waa wax laba geesood ah oo aan hal gees ahayn waay haddaba labadeeda geesood waxaad u baahan tahay inaad ogsoonaato qof kastoo labada geesooda muhiim buu leeyahay trustiguna waa riski ama aaminidu waa riski game waaye oo qofka dabcigiisa iyo dabeecadiisa aad aaminto waa riski game waaye cidda laga raba inay step ka qaado oo dhisid ku samaysana waa qofka hoggaanka ah oo ama horjooga ah adigu haddaad qoyska horjoog tahay ama kambani u horjoog tahay ama waddan u horjoog tahay qofka laga raba trustiga inuu dhiso waa adiga waay trust marka haddaad maqasho it's like the bank account oo kale waay bangiga lacagna waa lagu shubtaa lacagna waa lagala baxaa the more aad trustiga aad deposit garaysood wax ku shubto waxaa dhacaysa in aad noqoto qof la aamini karo oo model noqdo ama qof lagu dayan karo aad noqoto maxaa yeelay waxay garanayaan dadku meesha ay kuugu imaan lahaayeen iyo sida ay kuugu imaan lahaayeen maxay dadka leaderska ah aan loo fiirinin waxa ay dhahaan kaliya ee loo eegaa waxa ay qabtaan because in badan oo leaderska ama dadka hogaamiyaha ka mid ah in ay wax dhahaan way sahlantahay laakiin inay wax qabtaan way adagtahay wuxuu yidhi ninkii la oran jiray Andrew Carnegie as I grow older I pay less attention what man says waxaan bixiyaa attention yar wuxuu qofku ama ninku dhaho ama wiilku ama gabadhu ay dhahdo laakiin attentionkaygu wuxuu inta badan saaran yahay qofkan waxa uu dhahayo iyo waxa uu qabanayo ma isleeyihiin and that is markuu qofka dabeecadiisu aysan ahayn only dabeecad kaliya ee ay tahay dabeecad lagu tashan karo oo lagu raaci karo oo lagu rayrayn karo it's an easy inaan dhammaanteen erey dhahno laakiin ereyga aan dhahno inaan ku noolnahay wax aad iyo aad u dhib badan waay waan waxaan dhammaanteen u baahannahay alla subxaana wa tacaala inaan ka codsanno inuu alla noo fududeeyo oo alla uu noo sahlo subxaana wa tacaala trust haddaad maqasho ama aaminada haddaad maqasho is an essential waa wax lagama maarmaana qof kasta siiba leaderska qofku hadduu hogaami yahay in ay dadkiisu aaminaan ama trust ay ku qabaan waa waxaan laga maarmin trust it's not upon others kaliya ma aha waxay u tahay qofka leaderska ah waxa uu ma aragtay ka dhiganaya kaabidda ama u noqonaysa hogaanka ugu badan haddaba trustigu ama aaminidu waa waxaan qofku uusan ka maarmi karin ama uusan ma aragtay la'aanteed shaqayn karin ciday doonta ma ahaatee if people trust you dadka aad hogaamiso hadday ku aaminaan dee waxay ku siinayaan attentionkooda ama waxay ku siinayaan dhagahooday ku siinayaan marka ay dhagahooda ku siiyaan waxaa kuu sahlanaanaysa inaad qalbigooda aad qabatay aad ugu darto inay action qaadaan micnaheedu waxay tahay haddii aad tahay hogaamiye fiican oo bilaabay inay dadku adigoo ku aaminaan oo bilaabay dadku inay adigoo ku dhageystaan waxaa u sahlanaanaysa inaad dadka haddaad dhahdo waxaanan qabanaynaa ay qabtaan ama ay kula qabtaan daaris waxay muhiim ku tahay ujeeddada ugu horeysa oo karakterkaaga inuu kariyeed garayn karo ama dabcigaaga uu kariyeed garayn karo in lagu aamini karo marka aad hoggaan tahay iyo marka aad shakhsi tahay trust only grow slowly trustigu ama aaminidu waxay u kortaa ama u kobacdaa in ay si tartiiba u korto waxayna u jabtaa sida dhaladu ay u jabto oo way sahlan tahay inay jabto especially marka aad mistake aad u kasto aad samaysto haddana aad diido inaad dadka ka raaligarayso adigoo leader u ah waa arrin kalifi karta dadku inay ka baxaan trustigaaga haddii depositka marka dadka aad ka haysato ama waxa aad ku deposit garaysatay ay yar tahay waxaa dhacaysa in aysan dadku trustigaaga dib dambe ama aaminid aysan dib dambe kuu aaminin successful leaders waxay fahansan yihiin in ay dadku ama ma aragtay ay hogaaminayaan mideeda labaad ay ku taagan tahay 4 udbood oo lagama maarmaan ah oo mid walba muhiimadeeda leh kan ugu horeysa waxaa la yiraahdaa oo ay dadku dabcigaaga iyo aaminid ay kugu aaminayaan waxa la yiraahdo authentic in aad tahay qof xaqiiqa oo dhab ah oo lagu tashan karo waa waxyaabaha kalifa in qofku
وددك أي آمنان أو قادان why أرنتاس أي مهم أتا so many هجامية أما so many leaders كوينا الله كدقة ujeedada aysan arintaasi ugu sahlaneen waxa waaye because failure kooda ama jabka ay jabeen ma rabaan inay hor keenaan dadka maxay yeelay waxay aaminayaan credibility-gooda iyo dadnimadooda inay lumayso macnaheedu waxa waaye inaad authentic tahay inaad xaqiijiso waxa qofka u diidaya inuu aamino inay dadku u arkaan inuu failure yahay that is the sababta aad u arkayso in badan oo hogaamiyayaasha dadka ka mid ah in ay highlight gareeyaan oo mar waliba ka hadlaan guusha kaliya si aysan jabka ka hadlin laakiin waxaad u baahan tahay noloshu waa line waaye noloshu waa laba dhan waaye waa xumaan iyo fiicnaan waa qalad iyo sax waa guul iyo guul darro ma muujin kartid mar waliba guusha kaliya waxaad u baahan tahay inaad muujiso mararka qaarkood in aad guul daraysatay oo ibni aadan tahay oo aad hambaltood xaqiijiso waxaan inaad ku feelgaruuday waa arrin fiican waaye maxaa yeelay labada line waa inaad dhexdeeda joogtaa balan labadan line wax yar kaa tuso qofka liidarka ah ama hogaanka ah ama dabciga fiican leh ama raba inuu naftiisa soo saaro waa inuu ogsoon yahay inuu leeyahay weakness inuu leeyahay waa inaad ogsoon tahay maxaad ku liidataa haddana waa inaad ogsoon tahay muxuu yahay strengthigaaga ama awooddaada waa inaad heli kartaa cid kaa kaabta oo kaa koraysa oo kugu kaalmaysa dhanka aad ka liidato in lagaa kariyo bal tusaale ahaan aniga aan ku tuso baraarujin leader waxaan ku liitaa inaan video duubo inaan video edit gareeyo inuu videogaan ini soo gaaro laakiin strengthigaas waxaa iga kaalmeeya of research aan cilmi baarid leh maxaa yeelay meeshaan ku liito waay labaad waa inaad ogsoon tahay marka aad qiran karto waxa aad ku liidato inaad heli karto cid ibni aadana oo kaa kaalmaysoodan dadka u tusin mar walba picture aan xaqiiq ahayn in ay jiraan dhan aad ka qaldan tahay ama aad ka xun tahay meesha ay ka jiraan dhan aad ka fiican tahay ood ka wanaagsan tahay haddii marka ay dhacdo only dhanka aad ka fiican tahay inaad dadka tusto micnaheeda ama dadku ay fiicnaanta ay kuu sheegaan kaa badbadiyaan waxaa laga yaabaa inaadan weaknesskaaga ama meesha aad ku lidato aad u aragto inaysan muhiim ahayn laakiin balansigu waa shay muhiima oo laga rabo qofka inuu dhexda taagnaado si uu u noqdo authentic ama daacad ama qof xaqiiqada ku nool levelka labaad oo tiirka labaad u ah waxaa weeye waxa la yidhaahdo naftaada inaad manage garayso self managementiga waxa la dhaho character haddaad maqasho ma ahan micnaheeda intellectual inuu qofku yahay inuu kaa caqli badan yahay qofka maaha wuxuu only bartay inuu naftiisa asagu choice u sameeyo sida ilaahay subxaana wa tacaala noo sheegay annafsu liamaaratin bisuu hadday naftaadu ku hogaamiso waxay kuu kaxaynaysaa dhanka xun bay kuu kaxaynaysaa marka intelligencegaaga ama caqligaagu waa inaad dhihi karto naftaydu ima hogaamiso millions of people waxaa characterkooda lumiya ama dabcigooda iyo dabeecadooda lumisa because naftoodaa hogaamisa shahwadaa hogaamisa rabitaanka naftooda ay hor wadaanaa hogaamisa aan saas awgeed qofkii wuxuu noqonayaa qof aan lagu tashan karin ama aan la qiimayn karin it's an impossible marka to have a good character inaad yeelato haddii uusan jirin xeendaab ku celinaya ama value ku celinaya waa inuu jiraa meel aadan ka gudbi karin oo ku celinayso xeendaab sida inay honestyga ku celinayso kale oo daacadnimada ay ku celinayso kale sida inay diini ku celinayso kale andaad waxay kuu sahlaysaa naftaada inaad manage garayso saddexdan c waxay sahlaysaa marka self managementigaaga especially markaad leader tahay ama hogaan tahay ama horjoog tahay inay kuu muuqato number one inaad isweydiiso sideen celceliska ugu fiicna consistencyga see ugu fiicna success ama hogaamin waa boring waaye micnaheeda waxa waaye waxaad hor taagan tahay ama mar walba samaynaysaa ama tusaysaa dadka picture lagaa rabo inaad ku hogaamiso haddaba inaad isweydiiso marka consistencyga ama ku celceliska see iskugu fiicantihiin waa inaad ogsoonaato waaye inaad same qof tahay mar kasta iyo meel kastoo joogto micnaheeda isaan hore uga soo hadalnay self managementiga iyo authentic qof sax inaad tahay waa inaad habeenkii iyo maalinkii iyo xumaanta iyo wanaagga dadku ay waxay kugu yaqaanaan kugu yimaada number 2 sida labaad waa inaad choiceka aad samaynayso aad u samayso inay dadku ay u danaysid
xataa hadday ku jirto adiga dan inay kugu jirto midka kaloo choiceka ku hor yaalla inaad choiceka qaadan karto marka aad rabto character fiican inaad dhisto kan dadka ugu jirto in badanoo hogaaminta ka mid ah markay choice timaado waxaa imaada maxaa aniga dan iigu jirtaa maxaan anigu qaadan karaa maxaan anigu maaragtay qoysan karaa maxaan anigu maaragtay qarsan karaa laakiin markaad self managementkaaga iyo naftaada iyo shaydaanka ka adag tahay wuxuu qofkaasi ogaanayaa uu leeyahay aniga adduunkanaan joogo waa yaryahay inta aan qaadan karo waa yaryahay choiceka aan samaynayo waxaan u samaynayaa not only myself bar inay dadku ku danaystaan ama dadku ay dan ka helaan kan ugu xiga oo laga rabo qofka self managementkiisa inuu sameeyo oon hadda xoogaa ka hor ka soo taabtay waxaa waaye creditska inaad bixiso inaad appreciate garayso ama aad celiso wanaaga lagu galay inaad recognize garayso ama aad ogolaanto dadka contribute gareeyey successkaaga ama guushaada baraarujinay almost 50,000 oo qof baan YouTube maraynaa in badanoo idinka naga fiirsataa laga yaabaa inaad subscribe ahayn laakiin team baa ka shaqeeyey 150,000 ilaa ka badan buu marayaa TikTok-na team baa ka shaqeeyey waa ilaahay mahadiis waay marka waa inaa ogsoon tahay waaye all those things aniga hadlaaya ma aha successka qofka gaaro buurta gaaray ma aha madaxweynaha guriga cad fadhiya ma aha success ama ha yaraada ama ha weynaado waa inaad ogsoon tahay there is a people baa ka shaqeeyey oo lagaa raba inaad appreciate garayso ka mahad celiso oo u baahan inaad self managementkaaga ku darsato oo aadan isku arkin ama uusan kuula muuqanin inaad ummadda dhan ama dadka dhan ka qabweyn tahay number 3 tiirka saddexaad ay ku taagan tahay waxa weeye humility waxa la yiraahdo is hoos dhigid macnaheeda ay tahay inaadan isla weynaanin oo aadan isku arkinin in aad dadka dhan ama cid walba ka fiican tahay ma ogsoon tahay in aadan u baahan tahay inaad human being tahay ma ogtahay human being markaa tahay Allah subxaanahu wa ta'ala ruux wanaagsan iyo naf wanaagsan uu nageliyay laakiin bahadhi waxaa nagu jira laga sameeyo dhiiqo oo laga yaaba in aantaad adiga iyo aniguba waxyaabaha baadhigeena ama ka soo baxa ama aan sameeyno aadan ku qanacsanayn markaad marka big aad joogto oo isla weynaato xasuusno inaad human being tahay humble inaad tahay humble-nimadu macnaheeda ma ahan awoodda alla ku siiyey iyo powerka alla ku siiyey inaad qarinayso laakiin saan ka soo hadalnay waa inaad balance garaysaa naftaada inay tahay qof human inaad tahay oo aadan isla weynaanin oo aadan isku arkin ummadda inaad ka weyn tahay adigoon marnaba hoos u dhigaynin ilaahay powerka uu ku siiyey oo qof walba gooni ah tusaalahan alla talent buu ku siiyey hadal talent buu ku siiyey xisaab talent buu ku siiyey talent wuxuu ku siiyey gift buu ku siiyey cilmi diineed buu ku siiyey geesinimo ku siiyey dhaqaalo ku siiyey ujeedada lagu siiyey maaha inaad bariis ku raadsato waa inaad humble tahay oo aad dib ugu celisaa dadkii Allah subxaanahu wa ta'ala uu kula nooleeyay maadaama nimcadaas alla ku siiyey tan afraad ee ay ku taagan tahay waxa waaye courage dhiiranaan inaad ku dhiirato ama aad ku adkaysato si dabcigaaga dabeecadaadu ay u fiicnaan lahayd si dadnimadaadu ay u sarnaan lahayd maxay tahay courage maxaa waaye macnaheeda courage xagee ka yimaada courage comes to inside voice buu ka yimaada courage-ka ama dhiiranaantuna waa waxa kor u qaada qofka dabcigiisa u qaada tusaale ahaan haddii maanta bildinka nagu dhegani oo cunugaaga saaran yaho ka dhacayo oo layn yar oo alwaaxa lagu saaro oo lagu dhaho curud cunugaaga meesha ka qaada ama uu ka dhacayaa courage-ka iyo dhiiranaantaada xarigaas yarkaa orod baad ku maraysaa maxaa yeelay karakterkaaga iyo dabcigaaga wuxuu ka imaanayaa inaad cunugaaga seefgaraysato haddii marka aad dhiiran tahay ood wanaagga ku dhiiran tahay waxaa dhacaysa inside voice-kaaga inuu adag yahay inside voice-kaagana uu ka qiimo badan yahay outside voice-ka lagu dhahay ammaanta bannaanka lagaaga sheegayo waxa ay dadku kuu akhrinayaan inay kaala weyn tahay ama kaala qiimo badan tahay hawshaas ayada oo inside-kaagu uu ka qatarsan character is who you are characterku waa qofka aad tahay but repetitionska waa waxa ay dadka kuu yaqaanaan celcelisku waa waxa ay dadka kuu yaqaanaan tusaale ahaan waxaa la dhahaa actionkaaga waa waxa ay dadku arkaan laakiin insidekaaga ama intentionkaaga oo ah courageka meeshuu ka imaanaya waa waxa alla ogyahay subxaana wa tacaala waa inaad arrintaa ogsoonaataa ujeedada characterka uu muhiim u yahay waxaa la yidhahdaa talentiga will take you to the top bar waxa meesha top kugu haynaya ama aad la joogayso
waa characterkaaga waay marka waa inaad ogsoon tahay muhiimadda ay leedahay afartan waxyaalood oo kala ah midda ugu horeysa inaad authentic tahay inaad self management fiican leedahay humility inaad tahay oo qof maaragtay hooseeyo oo aan dadka ummadda iska weynayn inaad tahay inaad dhiiranaan iyo courage leedahay number 3 oo ah midda ugu dambaysa cashirkeena aad dabciga dabeecadaada ku dhisayso ee aad ku noqonayso horjooga fiican ee naftiisa hogaamiya kadibna noqon kara mid dadka hogaamiya hantana wanaaga ilaahay subxaanahu wa ta'ala siiyay inuu dadka gaarsiiyo waxaa la yiraahdaa character makes you big wuxuu ka dhigaa inside kaaga adigoon ka walwalinin outside dabcigaagu wuxuu ka dhigayaa ama kuu samaynayaa inaad tahay qof weyn oo masuul ah inaad inside ka tahay oo isku kalsoon tusaale ahaan hadduu maanta qof noo yimaado seen ku ogaan karnaa dabcigiisa seen dabciga qofka ku ogaan because dabcigu mara ma ahan uu wato waji ma ahan uu wato color ma ahan uu wato waxaan ku ogaan karnaa dabcigiisa number 1 qofkaasu siduu naftiisa u respect garaynayo knowledge-ka uu leeyahay value-ga uu qofkaasu uu ku fadhiyo xagee bay ka timaadaa markaas inaad naftaada respect garayso inside-kay ka timaadaa inaad aaminsan tahay inaad qiimo leedahay alla ku qiimeeyay xataa hadduusan ibnagaadinku qiimo ku ogolaanin waxay ka timaadaa inside-kay ka timaadaa haddii aad fail garowdo ama aad nolosha ku fail garowdo inaad ogsoonaato inaadan failure ahayn laakiin aad experience yeeshay in badanoo dadka ka mid ah waxaa ka dhiga inay wishul washer noqdaan ama xagga iyo xagga ay noqdaan oo xagga iyo xagga ay u dhexeeyaan waxaa waaye qofka markii uu wax ku fail garoyo aan challenge dhaco wuxuu hidgaraysmaysaa qalbigiisa kadibna inside forcekiisa saan ka soo hadalnay baa tirtirmaya walwal fardamaan baa qofkii galaya ma uu garanayo inay ka imaanayso self respectigiisa ama inay ka imaanayso ilaahay siduu u qiimeeyay subxaanahu wa ta'ala qiimahaas uusan qofna uga baahnayn ama cidna uga baahnayn in aad leedahay ability alla ku siiyay subxaanahu wa ta'ala oo aad wax ku bedeli karto waxna ku saameyn karto ability-gaas oo aad u baahan tahay haddii aadan ogeyn inaad busta ka jafto oo aad dhaqan geliso in aadan neglect garaynin ama aadan diidin waxa gudahaaga ku jira haddaba intaasi waxa ay kuu sahlaysaa in aad fahanto in aad yeelan karta dabci ama dabeecad wanaagsan ee aana dadkana kula dhaqanto hoggaan fiicanna aad ku noqoto conclusion saddexdaan aad iyo aad u yar oonan jeclahay in qof waliba uu qaban karo oo uu samayn ku samayn karo number 1 waxaa waaye embrace in good value muxuu yahay good value waa wax non negotiable ah what value-gaaga aad non negotiable ka tahay negotiable wax aadan cidna kala gelinin maxaa waaye aniga number 1 diinteeda waaye waxaan wax la qaataa ama wax la bartaa dadyow iga diin duwan iga dhaqan duwan laakiin in any time aan tago oo salaad la gaaro they know inaan meelaan ku tukado u baahnahay they know inaysan gabar gacan ii soo taagaynin why because that's my value it's a non-negotiable aan loo qof baa xusinay ruwa Standard Chartered Bank waxay ahayd gabar waxaan ku yiri anuu gabdhaha ma salaamo mana salaamo qof kale anuu adiga ku respect garana why because waa inay jiraan wax oo non-negotiable in your life number 2 practice self leadership waxa la yiraahdo what is the self leadership waxa waaye in aad ogsoon tahay in aad samayso the right things even hadday dhib badan tahay inaad wax sax samayso do the right things hadday kuu fududahay inaad xumaan samayso ha samayn ogow waxaad ogaataa self image-ga ama self respect-ga ama dad badan oo indhaha dhulka ka fiirinaya micnaha ay dhulka u fiirinayaan maaha inay adiga xumaan kugu hor sameeyeen waxay sameeyeen xumaan ay gooni u sameeyeen oo ay gudahooda ka og yihiin oo kalifaysa in self image-ka qofka u wasaqooba in badan oo dadka ka mid ah so when you think about inaysan cidina ku arkaynin ha samaynin hana ku dhicin inaad samayso inaad yeesho number 3 iyo midda ugu dambayso ah value people dadka value dadka qiimee waxa ugu qiimaha badan ee Allah subxaanahu wa ta'ala uu adduunkan keenay waa dadka waay laguma dhihinin muslimka kaliya qiime laguma dhihinin qoladaas kaliya qiime qof kasta qiime tusaale ahaan xaafadda aad degan tahay anigu ama xaafadda aan deganaho dadka gaalada aad degan yihiin dadka muslimka oo qaraabada ah waxay leeyihiin 3 qaybo dadka muslimka oo degan 2 qiime igu leeyihiin dadka kalena waxay igu leeyihiin 1 qiime igu leeyihiin waa inaad ogsoon tahay qof walba inuu qiime kugu leeyahay qofka 3 qiime kugu leeyahay ehel ahaan buu kugu leeyahay islaamnimo kugu leeyahay darisnimo kugu leeyahay
kan labada qaymo kugu lehna muslimnimo iyo darisnimo kugu leeyahay kan gaalkaana wuxuu kugu leeyahay qaymo ibni aadanimo oo aad u baahan tahay inaad ku qaymayso in badan oo dadkeena ka mid ahna hadday qaylada tahay hadday qashinka tahay hadday hadalka tahay in badani waa waxaan u baahannahay inaan fahanno maybe awoyaashan hadday duur deganaayeen inaan apartment iyo guryo hoose deganahay waxaan ilaahay ka baryayaa subxaana wa tacaala dabcigeenna iyo dabeecadeennu inuu alla ka dhigo mid aan nafteenna ku hogaamino si ay noogu sahlanaato inaan noqonno dad leaders oo fiican ama ummadeenna ay ka soo baxaan hogaamiyayaal fiican oo dadkeennu ay trust garayn karaan the last things aan raba inaan kuu sheego waxa waaye haddii dadka aniga ama adiga aanaan dad fiican ahayn dadkana hogaaminaya ama madaxweyne ha ahaado ama madaxweyne goboleed ahaado wuxuu noqonayaa midka dadka ugu xun why because ciqaabna la ku ciqaabayo waaye because aniga adigaa qof xuna haddii aan rabno marka inay dadku fiicnaadaan waa inaan aniga fiicnaadaa waa inaan inside-ka ka fiicnaadaa waa inaan outside-ka ka fiicnaadaa waana inaan fiicnaantii iswada gaarsiinaa haddii message-kan ku soo gaaray oo aad ka heshay waxaan jeclaan lahaa inaad dadka kale la sheer garayso channelkeena aad ka fiirsanaysana aad subscribe garayso si aan u gaarno more people oo message-keena dhegaysto insha allah